موسى يلحو wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyay qablaasha Soomaaliya ka abuurmay 1991kii Muuse Yelxow wuxuu ahaa dadkii bililiqada u geystay dadka Soomaaliyeed oo guryahooda dhacay wuxuu ahaa qablaashii Soomaaliya ugu weynaa ayaa waxa lagu xiray magaalada Muqdisho nabad iyo nolol waa dawlad qaran oo u dhalatay Soomaaliya waa ninkii ugu horreeyay oo qablaha oo la soo xiro oo gurigiisa caawa loogu dhaco wuxuu ahaa Muuse Yelxow dadkii ugu horreeyay oo sameeyay magaalada Muqdisho qadka cagaar waxa loo yaqaano iyo dadka culayskooda miisaanka intii la saaro lacagta looga qaadan jiray sida loo kala culays badan yahay wuxuu ahaa ninkii Cabdullaahi u sheegay hadaa soo gashay magaalada Muqdisho waan kula dagaalamayna hadaa naga awood badatina waan kula shaqaynaynaa dawladda ayuu wuxuu rabay caawa inuu sameeyo dad loo yaqaan maleeshiyad ay soo galeen magaalada Muqdisho oo ku qaraabanay inay yihiin ciidan loo diiday in la siiyo xaqoodii iyo mushaarkoodii ciidankaas oo ah kuwa been ah oo la sameeyay oo qabyaalad ku dhisan oo raba in ay haddana Soomaaliya Muqdisho ay ka bilaabato qabla labaad oo la shaqeysay al-shabaab iyo beesha caalamka ee Soomaaliya ka soo horjeedo oo cadawga ku ah nabad iyo nolol meesad taas ka ogolaanin ee waxay sameysay in xabsi la geeyo daas oo maxkamad la soo saari doono waagu markuu bariyo ninkan waa u jeedaa waxa waay tuugadii ugu weyn ee Soomaaliya soo maray ee dadka dhigooda lana arintaas in wax laga qabto Nigga, I came from the dirt, sipping up dirt. Why the fans wanna hurt?